iyo howlihii wada hadallada iyo heshiisiinta ee ka dhaxeeya ummadda galmudug dhexdeeda gaar ahaan arrintii ahlusunna waljamaaca waxay noo kaliftay in aan yaraha iska joogto sidii aan u qorshayno marka hore ugu socon weyno laakiin alxamdulilah waxaa guul iyo horumar u ah dhammaan ummadda reer galmudug meel kasta ay joogaanba in arrintaasi heshiis ka dhacay khilaafkaasna la xalliyey haddana dhammaanteena aan isku beejinahay sidaas daraaddeed annagoo markabka si amba qaadayna maaragtay dib u heshiisiintaas iyo midnimadaas ummadda reer galmudug waxaan rabnaa inaan la wadaagno ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan bulshooyinka reer galmudugba habraaca ama jadwalka cusub ee shaqada noogu socon doonta haddii alla idmo laga bilaabo maanta oo ay tahay taariikhdu 9 bisha December 2019 ilaa 23 bisha December 2019 waxaan ka dhammaan doonaa oo aan meel iska xiri doonaa haddii alla idmo arrintii xaqiijinta walayaasha iyo xalintii khilaafaadka ku saabsaneed baryaha noloshooda aan wadnay laga bilaabo 24 December ilaa 30 Decemberna waxaan soo gudbin doonaa oo aan soo dhammaystiri doonaa dhammaan xubnaha golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug haddii alla idmo 31 bisha Decemberna waxaan samayn doonaa dhaarinta iyo howlgelinta baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug haddii la yidhaahdo 4 bisha Janaayo 2020 waxaan u asteynay inay noqoto maalinta doorashada guddoonka golaha dowlad goboleedka galmudug haddii la idmo 9 bisha Janaayo waxaan u asteynay inay noqoto maalinta doorashooyinka madaxweynaha iyo hoggaankiisa haddii la idmo intaas ayaan doonaynaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada reer galmudug la wadaagno waxaan ku cudur daaranaynaa oo aan mar koowaad iyo mar labaad ku cudur daaranaynaa xaaladii farsamo ee ugu timid iyo dib u dhici yaraa waa mahadsantiin. Wassalaamu calaykum.